أصل عيسى أبشر واه جبر أقوي هندا هي أسوس شرحتي حمينا كم النقطة أقل كوسي برلمان كفدرال كالصومالية أصل أيام مشرح نمدة كجدا وقت مقالة قردية حرم تقبل ككركار وأقوي هندا وحكوبرة جودها الدلك وغاندا يهندية sababaha ku dhaliyay inay xilkan isu soo sharaxdo ayay ku sheegtay kadib markii aragtay aqoonteeda iyo waayo-aragnimada shaqo taas ay doonaysay inay uga faa'iideyso dalka iyo dadkaba ka sokow haddii la doorto asli xilkay u sharaxan tahay howlaha qaranka iyo hay'adaha sharci dejinta ay ku beerinayso waxay xustay inay matalaad dhaba la imaanayso ayna la socon doonto baahiyaha deegaanada Puntland ayna gacan ka geysan doonto baahiyaha ka yimaada horumar door muhiim ah ay ka qaadan doonto qodada haween door muhiim ah ay ka qaadan doonto qodada haweenka Soomaalida ayay musharaxad asli ku baaqday in lagu xadgudbin isla markaas waxa la yiraahdaa asli ciise abshir waxaan ahay gabar reergarnooda oo u taaganahay xilka musharaxnimada aqalka hoose ee baarlamaanka waxaan isku soo taagay oo aan dareemay in ay tahay baahi jidda sare waxaan kaga baxay Boosaaso digriga koowaad waxaan ka qaatay East Africa qaybta BBA-da digriga labaad waxaan ka qaatay jaamacad la yiraahdo IU Islamic University in Uganda qaybta Education Management-ga digriga labaad ee masterka waxaan ka qaatay jaamacad la yiraahdo Amit University oo ku taala India barnaamijka aan ku qaatay waxa waaye barnaamij la yiraahdo Pan African Network konton iyo saddex dal oo Afrikaan ah baa ka qayb galiyay haddii maanta xubinta gabarnimo aan isku soo taagay aan u tartamo oo ku guuleysto waxaan ogahay baahiyo badan aniga ma ahi qurba joog waxaan ahay qaran joog dalka joogay wax badanna waa ogahay baahiyaha dumarka haystaan ogahay kuwa dhalinyarada haystaan ogahay kuwa gobolka haysta baan ogahay aan ka soo jeedo kuwa gaar ahaan iyo guud ahaanba Puntland haysta baan ogahay xaaladda ay ku siman yihiin sidaa darteed ayaan isku soo taagay xilkan haddii aan ku guuleysto waxaan wax ka qaban doonaa scholarshipska sanadkii waxa inoo soo baxay intaas oo arday oo ka qalin jabiyay secondary ma wada helaan mixino jaamacadeed scholarship ay u aadaan banaanka waxaan noqon doonaa mid ku soo celisa gobolka waxaan noqon doonaa mid gobolka dib ugu soo noqoto wax ka qabata dhanka caafimaadka hadday noqoto dhanka arrimaha bulshada hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto haweenka hadday noqoto si gaar ah waxaan ugu ololayn doonaa isku istaagi doonaa xaqa haweenku ku leeyihiin dawladaha jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horeyn haweenka ayaa cod dheer ku soo dhaweeyay aqoon-yahanad asli ciise waxayna ergooyinka nabadoonada iyo isimada beesha ay ka soo jeedo ugu baaqeen in la taageero asli si ay aqoonteeda ay dalka uga faa'iideyso xafladda waxaa loo soo agaasimay musharax u taagan xilka aqalka hoose ee dawladda baarlamaanka Soomaaliya magaceedana la dhaho asli ciise abshir nurdege oo ka codsanayna madaxweynaha Puntland oo markuu fadhiyay federaalka Soomaaliya la qoondeeyay boqolkiiba percentage-ka boqolkiiba 30 dumarka loo qoondeeyay oo yahay madaxweynihii Puntland Cabdiwali Cali Gaas salaam baan u dirayaa waxaana ka codsanaynaa dhammaan gabdhaha gobolka Karkaar oo afkooda ku hadla asli ciise abshir oo ka bixi ka dhaxilka in loo siiyo nala ku taageero nala ku qadariyo ayaan ka codsanaynaa madaxda tan ugu sareysa iyo tan ugu hooseysa asli waa isnaqin asli waa qof ka bixi kara kaalinteeda waa qof wax qaban kara waa qof meesha loo diro ku aadi kara anigu waxaan leeyahay horta marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ilaa horta ku kuleeyay anigu teeda kale waxaan leeyahay dawladda noqoto odayaasha ha noqoto anagu maanta waxaanu doonaynaa kursiga gabadhaas ay rabto waxa kaliya oo odayaasha mar labaad iyo mar koowaad mar saddexaad ka codsanaynaa isimada iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu maanta codkayagaasi codsigayagaas nagu soo noqon haddii aanu nahay kuwii mar kasta iyagu hawlu taagan iyo garab taagnaa oo ilaahay idankii gabadha naloo ayido waxaan taageeraynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad dhimaan asli ciise abshir waxaan rabaa codsi aan u dirsanayo madaxweynahayaga iyo odayaashayada iyo boqorkayaga oo aan leeyahay hanaloo ajiibo codkayaga sida aanu idin ajiibno marka aad idinkuba noo dhawaaqdaan aan maqlaysaan aan midiyaha naga wada daawanaysaan waxaan rabnaa in aad naga ajiibtaan maamada isku soo taagtay xilka una aqoonteeda guddiga doorashada Puntland salaadiinta oo waxaan ka codsanaa mar labaad inay asli ay nagu soo celin
dumarku wixii dhahan dumar ma matali karo anaga way dumarku u matali waayeen ragga waxa u baahan yihiin su'aasha in la weydiiyo nin kasta kullu rajul cadiim waraahu imraa nin kasta oo weyn waxa ka dameeyo qof dumar ma hadana maamaabay dhahan wixii dhahan qofkii gabar wax bar qaran buu wax bar bulsho xageebay ka martaa marka maamaada iyaga ay dhahayaan jirarka marka la isugu yimaado culimada dawladda sare tan dhexe Puntland iyo madaxweynaha iyaga Cabdiweli Maxamed Ali Gaas oo salaamo leenahay yay nagu soo noqon wasiirada Aniisa waxaanu leenahay gabadha dibiyana loo ku soo celin doorsama jaamacada dibiyana loo ku soo asli waxbarashadeeda heerka sare ayay dibadda u aaday balse iyadu dalka ayay degan tahay waana midda ay ku kasbatay taageerid badan maadaama ay dareemayso baahiyaha iyo wacyiga ka jira dalka maxamuud fantastic TV-ga caalamiga Star magaalada Qardho